ballaaran oo loogu dabaaldegayay maalinta ay xornimada ka qaateen gobolada waqooyi ee Soomaaliland gumaysiga Ingiriiska ahaydna dhulkii ugu horeeyay ee Soomaaliyeed ee xornimo gaara ayaa waxaa lagu qabtay magaalada Nairobi. Munaasabadan ayaa waxaa ka soo qayb galay boqolaal qof oo shacab ah, madaxda jaaliyadda Soomaaliyeed ee Kenya iyo safiirka Soomaalida mudane Maxamuud Axmed Nuur Tarsan. Gudoomiyaha jaaliyadda Soomaaliyeed ee Kenya Cabdulqaadir Cabdi Diini iyo mas'uuliyiin kale ayaa munaasabada ka hadlay. Waxa la rabaa marka dhalinyaro midnimada iyo qaranka iyo calankaani inuu sanaga noqon maalinta xafladda kaliya inuu qaluubtayada ay gasho xorriyadu baa la rabaa. Waxa la rabaa qof kasta markuu guriga laabto inuu ku fakaro see Soomaaliya u dhisnaa, see Soomaaliya u midaynaa, see fakarkii ahaa in calanka la raadiyaan oo dhalinyaro raadiso oo la keenay seeba looga mir dhaliyaa guushiisa iyo horumarkiisa iyo sharafkiisa. Hadda maanta 220 baa lagu ansixiyay xildhibaan, codkii waa la wada siiyay. Fariinta marka halkaan aan ka diray caawa 26 June waxay tahay kol qof kasto Soomaaliya meel walba uu joogo dabaaldegaya. Waxaan rabaa qodobka inaan ka diro kii wasiirka iska waayo dawladda ha mucaaradin, kii agaasimaha iska wasiir ku xigeenka waayo ra'iisul wasaaraha iyo dawladda ha mucaaradin oo iska horkeen, kii safiir waayo dawladda ha mucaaradin. waxaan codsanaynaa in midnimo lagu wada shaqeeyo, in dawladda lagu la shaqeeyo, ra'iisul wasaaraha lagu la shaqeeyo. habeenkan caawa maalinka gobolada waqooyi calanka Soomaaliya shanta geesa laga taagay 62 sano laga joogaa. inta maalinkan nool oo halgamaysay iyo intay sii dhaleen ku xigaata hal qof kama noola inteenan maanta halka joogtaan nool. waxaan ugu baaqayaa marka horta aan u ducayno shuhadadii u soo halgamay madax bannaanida Soomaaliyeed iyo shacabka qiimaha badan ee Soomaaliyeed inuu xorriyad ku noolaado.